Araweelo, boqoradii dhulka hoosteeda qarniyo ka hor, dhul ballaaran oo u dhexeeya buuraha iyo dooxooyinka waaweynaa waxaa jiray boqorad weyn oo magaceeda loo yaqaan Araweelo. Araweelo waxay ahayd haweenay xoog badan, xikmad leh oo awood u leh inay maamusho qabiilo badan oo kala duwan. Waxay noqotay hogaamiye caan ah oo ay dadku u malaynayeen inay tahay mid qof kasta oo iska leh oo iska dhigna inay xukunto. Araweelo waxay ku dhashay qoys dhaqan weyn, laakiin waxay korortay iyadoo la'aanta aabaheed, taas oo keentay inay noqoto qof adag oo isku kalsoon. Markii ay korortay, waxay bilowday inay xooga saarto si uu u noqdo mid ka mid ah hogaamiyeyaasha ugu caansan dhulka Soomaalida. Waxay awood u yeelatay inay isku dhex daro qabiilo kala duwan oo ay ku dhisi doonto boqortooyo midaysan. Mid ka mid ah waxyaabaha caanka ku ah Araweelo waa xikmadeeda iyo habka ay u xallinaysay khilaafaadka. Waxay awood u yeelatay inay ku xalliso muranno dhexmara qabiilooyinka iyadoo adeegsanaysa xeeladaha iyo xikmada ay ka heshay taariikhda iyo waayo aragnimadeeda. Waxay sidoo kale awood u yeelatay inay abuuro nidaam cusub oo ay ku maamusho dadkeeda si habboon. Laakiin, sida qisadaha badankoodu yihiin, Araweelo waxay la kulantay cidhiidhi iyo isku dhacyo. Qaar ka mid ah dadka waxay u malaynayeen inay tahay mid xoog badan oo iska leh, taasoo keentay inay isku dayaan inay ka soo horjeestaan xukunkeeda. Si kastaba ha ahaatee, Araweelo waxay ku guulaysatay inay ku noqoto hogaamiye ku dhaqmaa si adag, iyadoo isticmaalaysa xikmad iyo xoogba si ay u ilaaliso nabadgelyada iyo midnimada dadkeeda. Qisada Araweelo waxay noqotay mid la xidhiidha dhaqanka iyo suugaanta Soomaalida, iyadoo lagu tilmaamo inay tahay halyeey dhaqan weyn oo ku noqotay astaan xikmad iyo awood. Qisadeeduna waxay sii waday inay noqoto mid la xiriira suugaanta iyo sheekooyinka Soomaalida ilaa maanta.